الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون عباد الله الله كتابك سينوغو الشاقي مؤمنين تويني ولالين إنما المؤمنون إخوة نبي محمد باينوغو ورمي أنهم كالجسد الواحد شرقوا كلا إني كدقيهين xubnihiisa kala duwan jirka waa mid qura laakiin xubnaha ayuu leeyahay saasa muslimiinta iyo muuminiintu ay ka dhigan yihiin waa kuwa isu damqada wanaagooda ka shaqeeya cadawga ilaahay oo ibliisa iyo acdaa'ul islaam cadawga islaamka gaala iyo munaafiqiina iyo dadka macaasidu qulubtooda ay dabooshay taama jecla waxay ka shaqeynayaan ay ku dadaalayaan siday muslimiinta xumaan ay u dhexdhigi lahaayeen waad ogtihiin meelo dhowra bay colaadi ka socotaa oo dad muslimiina oo weliba soomaali wada ah ay u dhaxaysa tukaraqta ka taagani muslimiin bay ka dhaxaysa waa muslimiin weliba soomaali wada ah oo walaala ah inama almu'minuuna ikhwa wax markaa cadow lagu tilmaami karo sida dadka qaarkood warbaahinta ay kaga tiraabaana maaha وكو إلهي يري إنما المؤمنون إخوة رسولك عليه الصلاة والسلام يري المسلم وأخو المسلم وحمركا جهاد لقلت المامي كرامها دقال ضد مسلمين وأرهن أدوية كصابصان ودحية عدة مركا عليما الشاقة أمر لقل الشاقة وحاسكو هذا الشاء وعدا الله سبحانه وتعالى وركيسي نبتان كترجمين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي كسوة تبيين عن شيء إنهم مفترون على الله كاذبون على رسول الله وكو إلهي كبين أبو رضي رسول كإلهينا سبحانه وتعالى وربين وانشرين كشيقاي واجب كو حوي قف كستاء مسلم ديتا وضيال علمية وحقرد دبكا إلا بختيو ودadka muslimiinta ay maamulada iyo dawladaha kala duwan ay inay isu yimaadaan oo arintooda nabad ay ku dhameeyaan si dhiigga islaamka ee daadanaya labada dhinacba ka qubanaya labaduba muslimiinta ayuu ka go'ayay si loo joojiyo waajibku waa ka ugu yaraan qofka muslimka ah duco waa inuu ka qayb qaato oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka bariyo inuu dadka muslimiinta dhiigooda kala baajiyo وإن أنا صاب نقاري سجو هذا الكيس يأخذ بديهسه يقرأ الذي سوين أنا صاب نقان ضبك مسلمين تكدح بحياة إروسيه العوسي شدمه ديج أنت كبضننا وصيدات وقفك إلهي كبقى سبحانه وتعالى دار الآخرة خصوصا الله إلا هو الجين دونه وحوقها اللي يوحو السماء يبل ويدين دونه سيدا بقرب ما يصني سيدا سويليه qofka arrinkiisu yahay aakhira yeelkeed dhiigga islaamka daadanaya ee waxa la isku hayana hadal lagu dhameyn karo iyo isafgarasho ayaa si ay muslimiintu dabka ugu sii daataan dhiig badanna u sii qubaan ayuu jihaad iyo dagaal sax ah oo janno lagu galaayo ugu sheegaya waad ogtiin inta ka socota iyaduna qabaa'ilka ceel afweyn iyo meelaha isku afdhaafsan iyaguna waa sidaas oo kale qofka muslimka gaar ahaan dadka la maqlaya dadka culimo dadka odayaal waa inay hadalkooda aad u dhowraan oo wax dabka sii shidaaya dhiigga islaamku inuu sii daato dagaal uu sii socdo sabab noqon qofna inaan ku hadal hana ogaado qofka kelmad ku darsada dambigeeda inuu xambaaran doono yawm alqiyaama oo Allah subhanahu wa ta'ala lagu horgeyn doono qofku wuxuu ku darsanaya waa inuu noqdo wax keenayo islaax hagaag iyo heshiisiin iyo wanaag in la dhex dhigo oo dadka muslimiinta ah ismaandhaafkooda la dhameeyo iyadoo Allah loo tala saaranayo niyadana laga dhigayo in Allah raali ahaanshiisa la doonayo oo niyada saxda ah waa muhiim iyo ikhlaasku arrinku inuu Ilaahay daraadii noqdo in yuriida islaahan yuwaffiq Allah baynahuma dadka heshiisa ka shaqeynaya marka hore waa inay dad iyagu doonaya dadka inay heshiisiyaan taas ay ka dhabto daacad ay ka tahay
markaasay dadku heshiinayaan sida ilaahay subxana watacaala qur-aanka ku sheegay. qolooyinka warbaahinta kuwa websaydada dhalinyarta wax ku qoraysa baraha bulshada lagu tilmaamo xiriirka bulshada lagu tilmaamo idaacadaha iyo tiifiyada waxaan leeyahay allah subxana watacaala ka baq. adduunyada maalmo kooban baa la joogaa, waa laga tegi doonaa, allah baa la hortegi doonaa. inta la joogo wixii la cunayeyna allah baa hore u qadaray. wada fiican in loo maro ayaana waajiba siduu rasuulku ittaqu llah waajmilu fi alab, ilaahay ka baqa oo wanaajiya qaabkaad u raadinaysaan arsaaqda. kolleyba intii laydin qoray baad helaysaan, kana badan mayso kana yaraan mayso. ilaahay ha ka baqaan subxaana watacaala, oo wax dadka dan u ah diintooda iyo adduunyadoodaba ha qoraan, wax dadku ay isugu soo dhawaanayaan oo dadku ay ku heshiinayaan oo dadka wanaag dhex dhigaaya, waxa ummadda kala fogeynaya oo aynu tilmaanay inuu yahay namiimada diradiraalaha uu ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ee jannada lagu waayayo naarta lagu gelayo, dadka kuwa ugu shar badan lagaga mid noqonaayo. waxa yaanay qorin wixii hore u dhacayn ilaah uga toobad keenaan, yaanay dhegaysanin waswaaska shaydaanka oo ah haddaanad waxaa qorin la akhrisan maayo meeshaada, lana iibsan maayo. allah baa taa hore inoogu sheegoo yidhi ashayطaanu yacidukum alfaqr waya'murukum bilfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim. shaydaanku xumaan buu faqri buu idin yaboohaya, xumaanna waa idin faraya, waa idin qurxinaya. allahna subxaana watacaala wuxuu idinku yeedhaya o idin ballan qaadaya khaladka haddaad kasoo noqotaan waa dembi dhaaf iyo ilaahay fadligiisa adduunye ka aakhiraba inaad heshaan. allahna subxaana watacaala khasnadihiisu waa buuxaan, fadligiisuna waa ballaadhan yahay, wax walbana waa ogyo wax ka qarsooni ma jiro. allah baynu weydiisanayna dhammaanteenba inuu ina waafajiyo inay noqono furayaal khayr, kuwa wanaagga ka shaqeeya, xumaantana qayb aan ka noqon. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.